qisadan waxay ka dhacday isbitaal lagu daweeyo dadka dhimirka la. Dhakhtarkii ayaa mid ka mid ah dadkii ku jira isbitaalka weydiiyey isagoo raba inuu ogaado garaadkiisa. Maanta waa maalintee? Bukaankii ayaa ku jawaabay, maanta waa Sabti. Dhakhtarkii ayaa yidhi, hagaag, berrina maxay noqon doontaa? Bukaankii ayaa ku jawaabay, berrina waa Sabti. Dhakhtarkii ayaa yidhi, haddii maanta ay tahay Sabti, berrina ay tahay Sabti, haddaba Axad goorma ayaa la gaari doonaa? Bukaankii ayaa ku jawaabay, Axad waxaa la gaarayaa marka maanta ay ka duwanaato shalay, marka aan dareenno inaan tallaab hore u qaadnay, marka cadaaladda maanta ay ka fiican tahay tii shalay, marka dulmigu wuu ka yar yahay kii shalay, ayaa la gaarayaa maalinta Axadda. Dhakhtarkii oo caqli ahaan la yaaban jawaabta bukaanka ayaa ku laabtay xafiiskiisii isagoo eegaya kalandarkii ku dheganaa xafiiskiisa. Haddaba bulshooyinkeenna waxaa laga afduubtay maalmahooda.